ilaa 3 xildhibaan oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka isla markaana 27 bishii hore lagu soo doortay magaalada Beedhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa maanta lagu dhaariyay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. xildhibaanada la dhaariyay waxay kala hayeen xildhibaan Cali Sheekh Cali Cabdullaahi Cali Afgooye, xildhibaan Nuur Siido Baaba Xasan iyo waliba xildhibaan Cali Cadow Maxamed. intaas kadib mudanayaasha golaha shacabka waxaa loo qaybiyay wax ka bedelka sharciga badroolka si ay u mariyaan akhrinta labaad. guddoonka golaha shacabka oo maanta uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay in la gudagalayo codeynta ilaa 8 musharax kuwaas oo u taagnaa inay buuxiyaan 2 kursi oo ka banaan guddiga la socodka dib u eegista dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaana u tartamayay 8 musharax ee kala ah xildhibaan Cali Sheekh Maxamuud Nuur Xaaji Cali, xildhibaan Cali Cusmaan Xasan Qoryooley, xildhibaan Maxamed Xasan Idriis, xildhibaan Siid Cali Abukar Macalin. halka kursiga labaad ay u tartamayeen xildhibaan Cabdifitaax Qaasim Maxamed, xildhibaan Bibi Khaliif Maxamed, xildhibaan Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar iyo xildhibaan Saciid Maxamuud Maxamed Xeyd. waxaana ku guuleystay xildhibaan Saciid Maxamuud Maxamed Xeyd oo helay codad gaaraya 82 cod, halka xildhibaan Siid Cali Abukar Macalin isna uu helay 96 cod sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. labadii xubnood ee ka banaanayd guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka waxaa ku guuleystay 2 xildhibaan oo kala ah xildhibaan Sayid Maxamed Maxamuud Xayd iyo xildhibaan Sayid Cali Cabdulqaadir Macalin. labadooda ku guuleystay. shirka annaga maanta halkaan ku egyahay kulanku waa noo xiran. intaa kadib waxaa warbaahinta la hadlay xildhibaan Saciid Maxamuud Maxamed Xeyd oo u mahad celiyay xubnaha golaha shacabka ee maanta u doortay guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya in xilligan uu madax ka noqdo guddigaas oo ku midaysan yihiin xubnaha golaha aqalka sare ee dalka iyo xubno ka socda golaha shacabka oo mishan xubnood ah. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan u hambalyeynaa dhammaan baarlamaan weynaha federaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ay maanta ka dhacday meeshaas doorasho loogu kala tartamayay 2 kuraas ee dhamaystirka dib u eegista dastuurka federaalka, taasoo wareegga koowaad iyo wareegga labaad lagu kala baxay. waxaan u wada mahad celinayaa intii walaalahay dooratay intaan dooran. shaqadan waa shaqo adag u baahan in la geliyo waqti iyo khibrad iyo mataqaanaa iyo niyad wanaag. ilaahay waxaan ka baryaynaa in maaragtay nagu ceeb astuur xilkaas culus ee maanta doorashada noo doortay. inta kale ee mas'uuliyadda hore haysan waxaa ilaahay xilkaa idin fogeeyo. waa kulankii 10aad oo qayb ka ah kalfadhiga 5aad ee xubnaha golaha shacabka. maantana waxaa soo xaadiray 156 xildhibaan waxaana shir gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo hareer fadhiyeen ku-xigeenadiisa koowaad iyo labaad.